haddii aan dhanka teknolojiyadda kasoo degan roganana dhaqanka iyo hidaha ayaa astaamaha ay dadka dunida ku nool ku faanaan kooxo dhalinyaro ah oo isu xilsaaray sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen dhaqankii hore ee Soomaalidu ay lahayd ayaa ka howlgala magaalada Hargeysa munaasabadaha dadku ay ku kulmaan iyo aroosyada ayay maaweeliyaan martida ewel waxa lagu maaweelin jiray heeso Soomaali ah iyo kuwa afaf qalaadba isugu jira kooxdani waxay wax ka badashay arrimahaasi waxay suurto galiyeen in ciyaaraha dhaqanka iyo ruwaayado ay jilayaan ay soo bandhigaan waa kan Cabdiraxmaan Dheegsan oo aasaasay kooxda Hidde oo inoo sharaxa magacaygu waa Cabdiraxmaan Dheegsan oo ah gudoomiyaha Hidde Academy hidaha iyo dhaqanka barashadooda waxaan bilaabay 15 sano ka hor sababta keentay aasaaska Hidde Academy waxa weeyaan kadib markii dadkii ay miigi ka soo guureen ayaa waxa timid in dadkii magaalada ku dhashay aanay arag hidaha iyo dhaqankoodii oo wax weeyaan dhalinyaradii oo aan haysanba goob ay wax ka bartaan in aan wax weeyaan kol hadii aanu ciyaarihii baranay in aan anagu noqono marjac ay hidiyo dhaqanka ugu noqdaan koox 12 qof 6 wiil iyo 6 gabdhood ah ayaanu ku bilownay markii ugu horeysay 2012 bishii afraad bay ahayd marka runaantii imikana waxay marayaan muxuu ahaayay waa 24 tiradu runtii caqabad naguma aha oo 24 waxa weeyaan runaantii waa laba group oo kaliya laba kooxood oo kaliya un bay noqon karayaan والله ciyaaraha hidaha iyo dhaqankeenu hayna aad bay u tiro badan yihiin ilaa 40 way gaarayaan waxa weeyaan ciyaaro macallin baramayaal dhaqan ayna kala bareen oo mid basaan inuga reebaynay ayay markii dambe isla bateen oo marka ay noo noqdeen tirada internet bergii hore waa nala yaabi jiray waa maxay waxana ciyaarisan waxan waa laga baxay miigi oo qof u haystay wax laga baxay tahay qof u haystay wax laga xishooday inay tahay qofba gees buu la kici jiray way waxay hore u arkeen meehan run ahaantii dadaal badan iyo wax weeyaan dhabar adayg badan maanta waa lagu xaragooda mariyay hidaha iyo dhaqanka run ahaantii imika waxa weeyaan xafladaha aroosyada oo kale wadarkiisa sidaan u kafeynay waxa weeyaan habeen walba looga tumayo xafladihii kale iyaguna magaaladii ka dhacayay waa waxyaabahan isleenahay wad soo kordhiseen oo waxa weeyaan aanu u bilownay dadkii iyagiina waxa weeyaan baahidoodii kaabtay wallahi cid gacan qabata oo dhaqaale ama qaab kale noo gacan qabata ma jirto oo inkastoo ay jirto wasaarad qaranka u qaabilsan dhaqanka haddana waxa weeyaan anagu ba iska feena waliba ku darso oo waxa timaada mararka qaar wasaaradaha qaar ama dawladaba aanu u fulinayno adeeg dhaqan in ay raahdaan muxuu ahaayay qarankiina wax ku darsada oo anagu kuwa tabarucno hidiyo dhaqankii oo waxa weeyaan qaranka iyagii tabarucaadba aanu u sameeyno